gacanteeda inay isku toogatay Hirshabeelle maanta laga bilaabo waxaa idin cadeynayaa dadka aniga aan matalo baarlamaanka federaalka aan ku matalo in wax Hirshabeelle la dhaho aysan aqoonsanayn waxaa jirta colaad gacan hadal isku bedeli rabta oo Cali Jayte iyo Hirshabeelle ka dhaxaysa sidaynu ognahay goortii hore Cali Jayte xilka laga qaaday ee uu ku dhawaaqay Hiiraan state maamulka la yiraahdo waxa wada hadal la furay Cali Guud waa wada hadal la furay Cali Jayte shuruudihiisa waxa kamid ah kun askari oo beeshiisa Hirshabeelle inay u tababarto loona ciidameeyo lacagta ciidanimadana loo furo sidaana ay ku wada shaqeeyaan bilka hore ayaa kunkii askari tababarkii u soo dhamaaday markii Cali Jayte kunkii askari oo beeshiisa ahayd oo ciidamaysan lacagtana dawladda federaalka ka qaata oo gacanta ku dhigay wajiga u bedeshay laba asbuuc ka hor waxaa jirta diyaarad la rabay inay buulo barda ka degto Cali Jayte ayaana suurtaa ku sameeyay dagaalkuna halka ayuu ka soo cusboonaaday Cali Jayte kunkii askari iyo ciidamo aad u tiro badan oo macaawis leeyahay oo horeba u watay ayuu isku duuday halka ayuuna dagaal diyaar u leeyahay dhanka kale madaxweynaha Hirshabeelle hadla wuxuu sheegay haddii Cali Jayte iyo beeshiisu ay nabad qaado waayaan ama ay wada hadal qaado waayaan in xoog lagu dayi doono dagaalkan ummadda Soomaaliyeed kuma baraarugsana laakiin wiigagan soo socda gacanka hadal inuu isku bedeli doono ayay u badan tahay sababtoo ah maamulkan halka uu taagan yahay iyo Cali Jayte inta raacsan meesha ay taagan yihiin marka la isku fiiriyo dad isku soo dhawaa kara ama wada hadli kara ama heshiis kara ma ahan dhanka kale markii laga fiiriyo Cali Jayte wuxuu haystaa beeshiisa oo asaga ku daba faysan haday noqoto xildhibaanka baarlamaanka ku jira haday noqoto askarta dawladda midka ku jira haday noqoto midka Hirshabeelle ku jira Cali Jayte dadkiisu waa ku wada daba faylsan yihiin dabageed oo dhanka kale ka soo jeedo macaarad ku noqday deegaanadii beeshiisu dagayso dhan uu ka tarxiilay jawarba u tarxiilay arrinka dawladda federaalka hadaysan soo faragelin gacanka hadal buu isku bedelayaa laba buur bay nimankan kala taagan yihiin Cali Jayte lagu sheegayo maamulka Hirshabeelle la yiraahdo ma aaminsanaba maamulkii oo uga dhawaaqay beledweyne ee Hiiraan state ayuu aaminsan yahay asaguna raba inuu xoojiyo xuraantu waxay sheegaysaa inuu ciidamadan kunka iyo ciidamo aad u tiro badan oo macaawis leeyahay horaba u haystay oo uu deegaanadiisu ku haysto hal askari oo Hirshabeelle ka amar qaata deegaanada oo ku horkaadiya Cali Jayte ma joogaan ninkaanu dadka shacabka ah uu kasbaday gadaal buu ku wataa waana dabacad lagu yaqaan dadka koonfurta dagoo dhan kooda wax magaratada ama dhibka iyo xasradda u sameeysan ayaynu jeclaana bal sharafta oo mususuuda dadka ku dhex leeyahay maanta fiiri bal cabdi qeybdi sharafta oo maanta dadka ku dhex leeyahay fiiri dhamaantood dadkii qabqablayaalka ahay ayaan maanta wali u nacamlaynaynaa war kumanaan professora oo ka aqli badan oo ka nabad jecel oo ka xasrad yar ayaa jira meesha maanta mususuuda caalankiisu saas u babanayo cabdi qeybdi caalankiisu saas u babanayo hebelka tiradii ka bateen abwaanadana xitaa qiimo male mid kasta oo xasradaysta mid kasta oo dhibaato wada abwaano ah dhanka journalistayaasha dad fiirid mid kasta oo balaayo ka sheekeeya ayaa hormuud noo ah war dadka kala Soomaaliyeed si uu baxaan dadka koonfureed uu baxaan oo rabnaa ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabaynayaa arrinka dawladda federaalka hadaysan faragelin gacanka hadal iyo meel aan laga qaban karin inuu gaaro ay tagaysaa dhankan maamulka oo Cali Jayte ku bootaynayo Hiiraan state hadii la dhiso matabaana waxay doonaysaa inay galmudug raacdo halkaana maamuladii dawladda federaalka ay dhistay ayaa ku burburaya aad iyo aad mahadsantiin ummadda Soomaaliyeed bogooda burcada Allah isku mariyo dawlad caadil Allah na siiyo dad waalwaalan baynu nahay Allah miirka noo soo celiyo dalkanaga iyo dadkanaga inaynu garawsano oo dalkanaga dhisano nabadda ka shaqeyno Allah nagu soo duwo qof kasto Soomaaliyeed maanta waxaan ka codsanaa maadaama maalin jimcaha ay tahay inuu dalkiisa u duceeyo waa dhibanahay iskuma jeedno dawladda islaamiyada tuugayna dalkanaga inay noo waardiyeeyaan kaalaya waardiyeeyaan taaganahay anagoo awood leh aqli leh dad Soomaaliyeed oo garaadkoodu fadhiya inuu nahay horta mararka qaar marka saas isku fiirido ma isla yaabta qofka aad tahay inaad Soomaali ilahay ka dhigay kan adduunka ugu liitana aad tahay beenan isku sheegnaa anagu dad wanaagsananahay wax wanaag liira anagu ma haysano warkii uu la fogaan waxaan ka codsan lahay hal sakin oo wadankaada ugu duceyso waxba kaama dhibayse balaayada Allah naga qabto oo dad wanaagsan Allah meesha noo soo saaro dalkanaga nabad Allah ku soo dabaal dadka Soomaaliyeedna qalbiyadooda Allah isku muujiyo aad ba mahadsantiin muuqaalkan si sheer gare si walaal aad u tiro badan oo dalkanaga u duceeyo la helo ku aamin Iiraan loo helo aad ba mahadsantiin